Waxay dhaheen noloshu waa sida beerta oo kale, qof walba waxa uu beerta ayuu midhihiisa gurtaa. Dhammaanteen waxaynu leenahay riyooyin inoo gaar ah, kuwa xaqiiq ah iyo kuwa xaqiiqda ka fogba. Qof walba dunidan joogana waxa uu soo kacaa si uu riyadiisa ugu beddelo mid xaqiiq ah, waxaana uu qaadaa tallaabooyin uu aaminsan yahay inay gaarsiin karaan riyadiisa. Halganka maalinlaha ah waxaa barbar socda guuldarrooyin joogto ah, niyad jab iyo turunturooyin aan dhammaad lahayn, kuwaasoo dadka ka dhiga kuwo u qaybsama laba kooxood: koox guuldareysata oo bilowgaba shaacisa guuldaradooda kuna maaweelisa naftooda marmarsiyo ay kaga gabanayaan qaadida mas'uuliyadda guuldaradooda, halka kuwa soo hadhayna ay u noqdaan guuldarrooyinku cashar aanay ku hakan fahamkiisa, xooggana saaraan u gudubka marxaladda xigta guuldarrada. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa dad yaraantoodii ay dhagahooda kusoo noqnoqdeen waxaad tihiin kuwo guuldareystay, dhadhamiyeyna guuldarrooyin badan, laakiin u dagaalamay xaqiijinta riyooyinkooda, iskana dhegatiray hadalladii niyad jabka lahaa ee kaga imanayay dadka kale. Kusoo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta. Balse intaynaan muuqaalka gudagelin, muuqaalka like saar, sidoo kale haddaad nagu cusub tahay subscribe channelka oo ka mid noqo saaxiibadan halkan ku saaxiibnay. Haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsantahay. Albert Einstein waxaa hubaala markaad magaciisa maqashay inaanad rumaysanayn in Einstein ahaa qof noloshiisii hore ahayd mid guuldarrooyin ku salaysnayd. Laakiin Einstein waxa uu ka mid ahaa dadkii la soo kulmay niyad jabintii ugu badnayd yaraantiisii. Macallimiintiisii waxay sheegeen inuuna maskax fayoobayn, waxaana laga caydhiyay iskuulkii uu dhiganayay. Markii uu damcay in iskuul kale galana sidaas oo kale waa loo diiday inuu galo. Einstein ikhtiraiciisii waxaa hubaala inuu nolosheena ka dhigay mid aad u sahlan. Internetka, iftiinka iyo tiknoolajiga casriga ah ee maanta aadamuhu ku raaxaysanayo inuu isagu sabab u ahaa. Einstein isaga iyo macallimiintiisii sanado ka hor ayay dunidan ka tegeen, laakiin isaga saameyntiisii waxaa hubaala inay weli sii nooshahay, halka kuwii shalay niyad jabinayay aanay taariikhdu wax ahmiyada siin. Waxaa hubaala inay yar tahay qof dunidan jooga oo aan maqal magaciisa ama aan isticmaalin borograamkiisa. Waxa uu ka mid yahay dadka ugu saameynta badan qarnigan. Waxaa hubaala guri walba oo kombiyuutar yaallo inuu galay magaciisu Bill Gates. Yaraantiisii waxa uu ka tegay jaamacaddii uu dhiganayay si uu u samaysto shirkadiisa u gaarka ah. Go'aankan ayaa ka dhigay mid tuhun geliya aqoontiisa, iyada oo dad badan ay ka mid yihiin waalidiintii ay aamineen inuu ku fashilmay waxbarashadii, taasina ay sabab u noqotay ka tegistiisa jaamacadda. Laakiin Bill Gates maanta waxaa lagu tiriyaa ninka labaad ee ugu hantida badan dunida. Ugu dambeyn, daawada isweydii, ka waran dadkaasi hadday noqon lahaayeen kuwo duruufuhu ka adkaadaan, ma gaadhi lahaayeen meesha ay maanta gaadheen? Qof walba oo inaga mid ah waxa uu xambaarsan yahay riyo u gaar ah. Si uu riyadiisa uga midho dhaliyana waxaa lagama maarmaan ah inuu la imaado dadaalkeeda. Dunidan waxaa kugula nool malaayiin qof. Haddii aanad u dadaalin waxaad rabto, ogow waxaa heli doona qof kaloo riyadaada ku riyoonayay, markaasaad adna dhihi doontaa riyadaasi waxay ahayd riyadayda. Ogsoonow daawade hadalka odhanaya u shaqayso adduunyadaada sidiinad weligaa noolaanaysid, u shaqayso aakhiradaadana sidiinad berrito dhimanaysid. Daawade waad ku mahadsantahay haddii aad soo gaadhay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar, sidoo kale haddaad nagu cusub tahay subscribe channelka, muuqaalkana sii sheer garee. Haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsantahay. Assalaamu calaykum.